Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. maanta waxaa ka furmay magaalada Muqdisho shir la yiraahdo shirka Somali Partnership Forum la yiraahdo oo ay ku kulmaan madasha isbahaysiga Soomaaliya iyo caalamka oo looga tashado marxaladda Soomaaliya marayso iyo sidii horumarkeeda looga shaqeyn lahaa. dawladda Puntland shirkaas kama aysan qayb galin. waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kalifa inay Puntland ka qayb gali weyn. maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka, maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi u ah midnimada Soomaaliya iyo federaaleynta, iyada iyo xubnaha kale ee dawladuhuna ay arrintaa ka sameeyeen. waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas inta la eg in Puntland aan laga talagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo sidoo u dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan tala ku lahayn, oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi ku lahayn, oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn, oo idinkuba waa arki kartaan la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka Carabiga yaqaan la yiraahdo tacliiq ama remarks. qodbad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan. intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday. runtiina wax Puntland ay qaadan karto ma aha. bulshada caalamka oo dhanna si cad bay ugu cadaysay inaysan arrintaas raali ka ahayn. waxaa intaa dheer inay dawladda federaalku oo ahay dawlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dawlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinaya. waa wax dastuur ka soo horjeedo. waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland, doorashada ka dhacday, process-keedu la wada arkayay, doorashadeeda loo wada jeeday. waxa ay dawladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato. shirkan hadda dhacaya wuxuu dib u dhacay muddo sanad ka badan. October-tii hore inuu dhaco ahayd waxaa dib loogu dhigay doorashadii Koonfur Galbeed oo markaas la rabay inay sida maanta u tahay loo sameeyo. waxaa haddana ay ahayd inay dhacdo July, waxaa dib loogu dhigay doorashadii Jubbaland inay ahayd sidaan inay u dhacdo. wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah. waxaan runtii saaxiibaday iyo madaxdayda dawladda federaalka ah oo runtii dad aad aan isu naqaano oo saaxiibo dhow nahay, aragtiyahana aan ku kala duwannahay, marar badanna aan u sheegay in ay habboonaan lahayd in wada hadal muuqda oo furan la geliyo dalka Soomaaliya. waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda ah meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan. dawladda Puntland waxay diyaar u tahay wada hadal furan oo shaashada laga daawanayo xataa sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada. waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan. waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed. waxaan ku boorinaynaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo. waxay Puntland diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato sidii dalkani uu uga bixi lahaa habacsanaanta jirta.